qaadka marka dhowr qisaan kaaga sheego adiguna ku wadaysa ku dar anu waxaan qaanay nin sheekha oo maxamed la oran jiray waxba magaciisa kale yana ku darin maalin baanu sheekaysanay waxaan ku iri deegaan kala joogto shamxaad oo qaadka waa laga cunaa adigu sama cuntid maxaa dhacay waa deegaan caamada iyo culimada iyo kayar iyo kaweyn iyo ahlu sharafka iyo ahlu dalaalku ay cunayaan way war waxaan oo dhani way cunaane adigu maxaad u cuni weyday baan ku iri wuxuu iri anoon qaad cunin oo iska reemiye oo baadiyaha degan yaan maalin tuula ibid qaad baa la ii qaaday ninan qaraabo ahayn oo isku fiicnayn baa intuu i karaameeyay qaad iyo qada isugu kay daray markaan qaadkii cunay oo ka dhargay baan galabtii carraabay carraabaha soo lama yaqaan carraaba dheer baan carraabay maqaaxiyo yar yar oo jidka ku yaalana 2-3 jeer baan shaah baraada kaga sii dhuftay show 200 baan kacay anoo socda ayaan gurigayga habeen barkii tagay waxaan u tagay gurigayga oo 9 ciyaala ii hurdaan oo cashadii meel la ii dhigay oo biyihii caanihii meel la ii dhigay baan tagay waxa uu yiri waan qabow baa igu dhacay marka meel qabow oo ana qaan buu carraabay qabow baa igu soo dhacay buu intaan guriga u sii dhawaa ku ishaalka haba wixii tari waayay anigii dhanaaba dhinacanna kulayl baa idilay dhinacanna qabow baa igu dhacay si aan haysma garanayo waxa uu gurigi markaan tagay dab baan noolaayo xilligaas ciyaalka islaantuba gameen dabkii baan xaaba halkan oo miiciyo oo galool oo khatara ayaan soo ururiyay buu yiri xaabadii guriga ardaagiisa taalay oo golaha taalay baan soo ururshay dabkii baan isku hal mar saaray waxa ila la yaabanayd buu markuu dabkii cirka galay een arkay aqalkii inuu gaaray fiiri waxaan nidhi mukhadaraadka qaarkood annashu wa darab adoo yara waalan baad haddana waad joogtaayo haddii lagu uleeyo waad garan haddii lagu caayo waad garan haddaad meel ka dhacdo waad garan laakiin haddana sibaa lagu sitaa markaad sakhraansan tahay wuxuu yidhi maxamed markaan huriyey dabkii shiday ee uu gaadhay dhigihii ee uu qabsaday ayaa wuxuu yidhi waxaan arkay inaan halis ku jirnaan iyo ciyaalkiiba ku ishaalka ahaa intaan iska qaaday baa waxaan naftaydu ii sheegtay buu yidhi nin sakhraansan baan ahay intaan dabka dusha ka saaro inaan hoos ugu soo xajiyo waxaan isiri buu yidhi dabkani muxuu isla waalayaa go'aaga intaad ku daddo gabigiisaba ku istaago hoos u xajibaan isiri buu yidhi ku istaagidii dabkii meesha iga gubay horta waa taas uu lugtaas uu guban yahay waxa uu yiri islaantii baa toostay oo midha wali gam inuu isugaysay markay aragtay guftii dabka 9 ilmood baa ku jiray islaantii bal fiiri adu waanu gubay wuxuu lahaayo dhan baana ku jira mamiir qaba keenay markaad baliisha haduu miir qaba carruurta muxuu isaga gubaya wuxuu yiri sheekh maxamed dabkii markaan gu'ina ku tuuray ayaa islaantii soo boodayo weel weyn oo biyaha af weyn haan meel ku xidhan baa intay jartay mindi ku jartay bay saa ugu sii daysay ilaahay wuxuu yiri carruurtiigu ii badbaadiyay 9 carruurta intaan dhalayay waxaan tabcanayay ee alaabaha ee guri ahaana waxba igama hadhin buu anoo faramadow baan meesha ka dhaqaaqay go'aan markaasaan goostay buu nin doona haysiye ilaahay baan ballan ugu galay buu inaana mar dambe dhag qaada xitaa inaan afka galiyo iska daayay inaana ku findhicilanin xitaa qaadka markii la yiraahdo waa xanaaqa marka sheekh maxamed waa noolaanay markii ugu dambeysay hadduu hagaagsan yahay taama yeeleen qisa kale waxa jirta aan mar aad uga sheekaynayo iyadoo gobolada tan Puntland bay ka dhacday oo ninkay ku dhacday waa la yaqaanaa ha dhageysta hadduu rabee wuxuu yiri reerkii baan raray subaxii markaan reerkii raray uu tuuladii ag marahayo baan idhi heblaayoy in adeeray ciyaalkan raashin u soo qaadiye riintan xidhay yaan idhi buu ciyaalkan raashin u soo qaadiye si wad reerka markaasay tiri buu abaar baa lagu jiraayo wallahi billahi rida ariga kama oo kaligeed riman oo dhalayso ciyaalka ugu cadaysanaya inaadan xidhayn maan halkii baan ku dagaalanay buu ana waxba xalaal ahayn baa reerkii wax ka kaxeeyay marka reerkii wax ka kaxeeyeen habeenkii reerkii furnay baan idhi buu haddaba reerkii dajiye subaxdii ridaasaan sii qaadeen ciyaalka bariisu soo siin been baad sheegay qaadkii heblaayeen ku bixisaad rabtaaba ay tiri buu dayn leeygu leeyahay oo qaad may baan idhi buu may raashin baan soo siinay been baad sheegaysaa ma soo siinaysid ma sii qaadaysid rida waan ku dhaartay reerka inaan ka tagi rida hadaad sii qaad habeen badkii baa waxa igu kicisay rida inaan sii qaado gabigeeda inaan sii qaado dabadeedna ridii intaan u dhacay arigii anoo sida libaaxii oo kala ah baa si aan ayu ciin baan afka iyo sanka isku dhajiyay buu ridii waan la booday sida libaaxa boodkan kala dhacay waxaan la sii digdigleeyaba carar baan ahay islaantii iyo ciyaalkii baan ka baxsanayaa ma garan buu rida afka siida mar damba markay tahay meeridii cuslaatay buu mise waan eegay wallahi 2 kiisho qamadin ay leegta
dhig baan isiri mise waaba bakti ridi way baktiday ficilka qaad baa keenay waa ridi la isku hayay wuxuu yiri intaan soo qaaday oon halkay ariga ka fadhiday dhex dhigay baan subaxii baleeg annagoo reerow hebelaho ilaahayna karaameeyay baad subax walba qayla iyo khilaaf yaad keenaysaa bal ridi eegaad ii diidaneed waa taa baktiday xalayna ana baktiyay buu ya markaas waxay leedahay bala ku dhacday markaanu isqabanay inkaar baa dhacda waan ogahay mid sahlan ma aha qaadkiisa inaan isaga daayaa la ii qaat muxuu ku doontay ridi inuu xado baktiyo aqli xumadiisa halkii soo dhigo haddana subaxdii uu ku awliyaan allanimo doonto wali baan ahay buu kiiskii u rogay qaad baa keenay marka waxaas waxa weeye marka qaadku waxaan leenahay wuxuu keenay adraar ijtimaaciya waayo ninkii biilkiibu wax ku cunayaa qurun isagoon wax badan haysanin reerkiiba marka ka hor imaanaya intaasoo reer baa qaad sababtii u kala tagaysa waxaan aragnaa carruurtii aabba iyo hooyo wada tarbiyaysanaya ma jiraan in badan oo kamida carruurtii waxay u dhumayaan aabbahood baan gurigaba warka haynin qofkaas cimrigiisii buu dhumiyay muxuu ku dhumiyay maalin walba duhurkii ilaa habeen badhkii ayuu meel fadhiyaya